6 bilood wax ka yar markaad isticmaashay oo la seexatay 6 bilood wax ka yar tusaale ahaan ay cunug ugu dhashay cunugaas adiga ma lihid sabab aqallu al-hamli 6 ashhur sharci islaam waxaan haddii uur uu noqon lahaa oo aniga biyahaygii iyo jimaacaygii ah 6 bilood ugu yaraan waa in laga joogo ta lagu dhali kartaas hay haweenaydii markii adiga yani haweenayd markaad guursatay oo la seexatay 6 bilood ay kuugu dhashay cunug 6 bilood markii la joogo cunug kuugu dhashay ma dhahaysid war ilmuhu 9 bilood aan maqli jiray cunugan iska marihi anugu adiga iska leh sharciyan cunugaas adiga iska leh maxay ila halkan waxaad ka ogaatay aqalul hamli 6 ashhur ilmuhu waa ku dhalan karaan 6 bilood waa ku dhalan karaan 9 bilood waa qaalibka si hada sheekhu noo sheegi doono wa qaalibul kaamil 9 ashhur 9 bilood waa qaalib si qaalibka loo badan yahay maruu 4 sano oo cunuga caloosha isaga jira mar 6 bilood ayaa cunugu isaga dhalanaa وثلث عام غاية التصور واساسه كالمسائل الغدسة غردا كم مسائل كالغدسة مثلا هويني أو أورله أيقف النبر كلفت نبر مركو كلفته وحكسو دعي عد هيلبة عد كهيلب كأه صورة بن آدم كم وقني فرتي وصور على تي يا لوار ولو هالفرب الله كده فرتي وصور نحتي قعين يرقي وصور على ربتي صورة بن آدم صور على الوار وجبت ديا واجبس ديا ده محيتها غرة شنف وقيله غرد ولا ما ضد ديا كواجبس لأنه هو صورة بن آدم وقاري بن آدم وقاري وبن آدم الدش بن آدم أيدش أنت بن آدم كوغير وبن آدم كسروا بكرنا وأفر بلاد لكن هدي وح كير أفر تاس بلاد مثلا قبل أورك لهذا نمر على الغرفتي ديجا صوت اللاعي وحيل بن آدم ما بقارن ديجا صوت اللاعي غرة لك ما قاضي يقفك عشان نفوق قيل لك ما قاضي غرة كم واجبس غرة مركي كواجبس ويران صورة بن آدم وينو بالله تصور وينو بالله مركي مسائل كان ومسائل لغد السيو لوازم فروع بدنا يلان دوران مركي كتاب النكاح أنقارنا أنا أركض دورنا لغد